fallaarta idiin muuqata waxay si toos ah uga aadan tahay goobta ay ku qaxweynayaan sidoo kalena ay ku cunteynayaan madaxda sare ee ururka al-shabaab oo ku jira Sheekh Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere oo ah afayeenka kooxdaasi. muuqaalkii la yaabka lahaa ee qabsaday baraha internetka ayaa ugu dambeyn si toos ah loo shaaciyay, waxaana la arkayaa in Catoshire uu ka soo horeeyo sidoo kalena uu waxaysiinayo waa meesha ama halka ay fallaarta gududani ay ku aadan tahay goobta ay fadhiyaan Cali Dheere iyo madaxda sare ee al-shabaab. waa meherad ku taalla ceelasha biyaha oo Catoshire xayeysiinayay, waxaana muuqaalkan uu ka yaabsaday boqolaal Soomaaliyeed oo ku kala sugan daafaha dunida, iyadoo hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA si weyn loo dhaliilay inaysan wax war ah ka hayn goobta ay ku sugan yihiin madaxda sare ee al-shabaab, iyagoo si toos ah markaasi wax uga cunaya gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. barnaamijkana ayaad ku daawan doontaan iyo Catoshire dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada NISA ay qorsheynayaan in la soo qabto sidoo kalena wax laga weydiiyo halka ay si rasmi ah ugu taalla meheradaasi, iyo sidoo kale mulkiilaha meherada oo iyadana ciidamada NISA ay u yeereen sidoo kalena waxa gabi ahaanba albaabada la isugu laabay meheradaasi. barnaamijkana ayaad ku daawan doontaan muuqaalka sirta ah ee la soo qarxiyay iyo qaabka shacabka Soomaaliyeed ee la yaabka iyo amakaaga ugu noqotay in madaxdii ugu sareysay dagaalyahanadaasi kooxda ay gudaha magaalada Muqdisho ku jiraan, sidoo kalena ay cuntooyin ka cunayaan meheradaha iyadoo aysan wax war u ahayn hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo xilligan mas'uul ka yahay Mahad Maxamed Salaad. dhammaantiin muuqaalkan la garay like-tu waa inoo muhiim, YouTube-kana subscribe saarta gambaleelkana furta kuma hasanadiin waxba yaana waridin ku doona. waxaan halkan idin kula wadaagi doonaa muuqaalada qarxay ee baraha internetka xilligan qabsaday iyo sida Catoshire uu u galay dambiga weyn isagoo aan wax war ah ka hayn halkaasina la gashay maciishadiisa iyo sidoo kale markaasi inuu meheradaha markaasi waxaysiin u sameeyo si isaguna shaaftadiisa uga diloodo. Catoshire ayaa xilligan waxa uu eersanaya ay qaban dad fara badan galaangalkiisa meheradaha cuntooyinka isagoo ay khalis ku tahay xaaladaha amni ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana hay'adda NISA xilligan qorsheynaya xabsiga dhigaan Catoshire. haddaba daawasho wacan. فقيري كبير انت واستعمال كلام سوق كلام افريكان دابي ومقايدي وغورس دابي كان مغالبا مقدسه خاص او دابي ده انت اميرها اي كسميسد اي تعمل كلهم ابن ادم هذا سوق كلام سمينيا جيزه عشريه halkaas sida arkaysan alayar ayaa taagan oo shaqaalaha maqaayada African Daabi ambiisa ka tirsan soo dhawo maxamed ay mooqaw degdega beeli sudaama amada عريفان كان عالما انتبهت وأركيستان أفريكان دابي الجيزة وكنت لأي حاجة كالبيلية من أصحابها عريفان كان ولي معه
Dapo ay bakan African dami ang pizza line. Asxaabe neer ceelasha biyaha haddii tahay nasiibaa neela ebalowna magaalada muqdisho ka dalba jirtay hadda African dami ang pizza ceelasha layaan kula soo celin noqonaysa isagoo badalaasas noocahay haddaba muuqaalka afhayeenka guud ee ururka al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ayaa shalay soo galay warbaahinta isagoo halkaasi qabsaday baraha internetka waana ragga macawiisaha gidguudan ee sida tooska markaasi u shaaxeynayaan sidoo kale markaasi iskula fadhiyaan waxaana ciidamadahan ay khaas u tahay dagaalyahanada kooxdaasi ururka al-shabaab iyo madaxdoodu inay aad u isticmaalaan markaasi ciidamadahaasi sidoo kale waxay caan ku yihiin garka hareed kale ee markaasi ay la baxayaan sidoo kale markaasi ay shacabka Soomaaliyeed la soo istaagayaan muuqaalada la duubay iyo sidoo kale cadeymaha ayaa muujinaya in markaasi meherada uu si galgalay sidoo kale uu joogo ninka lagu magacaabo Cato Share oo sidoo kale geesa iska fiirinaya sidoo kale markaasi aad u baqsan waxaana Cato Share ay mar qor indhihiisu qabteen afhayeenka guud ee ururka al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere halka dadka meherada jooga aysan dan iyo heella ka lahayn in Cali Dheere uu meesha fadhiyo oo ay wax ka iibsanayaan sidoo kale markaasi aysan wax xog ah la wadaageen laamaha ammaanka wadi shacabka Soomaaliyeed ayaa wixii markaasi ka dambeeyay waxa ay go'aansadeen in ay la hadlaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo laga dhalilay baraha internetka sidoo kale loo sheegay inay gabi ahaanba ku fasilmeen hay'adii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo loo gacan galiyay ninka waan la ah oo geel qali jiray kaas oo lagu magacaabo Mahad Maxamed Salaad xilligii dawladii madaxweyne Farmaajo lagu xasuusto in geel uu ku soo qoray 1991 isagoo markaas ula jeeda in dalka uu gali doono foodo iyo qalalaas siyaasadeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku shaqeynaya nidaam aad loola yaabay kaas oo qof kasto aniga maalin ila soo joogay waxaan u dhiibayaa xil waxaana durbadiiba la arkay Xasan Sheekh Maxamuud oo xilalkii oo dhan ku taxaya dadkii mooriyaanta ahaa ee foododa ahaa ee qaska waday xilliga dawladda madaxweyne Farmaajo ayna ugu horeeyaan Maxamed Salaad xaaladda amniga caasimadda tani intii unisa la wareegay Mahad Salaad ayaa faraha ka baxday waxaana shacabku ay tabayaan hogaamintii wanaagsaneed ee madaxweyne Farmaajo iyo hay'adii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee uu hayay ninka lagu magacaabo jiray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haddaba laamaha ammaanka ee Soomaaliya ayaa waxa dul hooganaysa ceeb iyo fadeexadii ugu dambeysay iyagoo aan kala garanayn xilliga iyo goobta ama goobaha la weerari doono ama xilliga ay dhici doonaan markaasi qaraxyada abaabulka xoogooda ka dhacayo guud ahaanba caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho la taliyay amniga qaranka hore ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa si cad u sheegay in kooxda Damul-Jadiid ay ka shaqeynayso markaasi isku dhaca beelaha Soomaaliyeed iyadoo markaas sidoo kale ay sameynayaan inay abaabulaan sidoo kale ay si toos ah markaasi ula shaqeeyaan dagaalyahanada ururka al-shabaab haddaba shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka walwalayaan nooca dawladnimada laga wareegi karo hogaamiyaha kooxda Damul-Jadiid Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan qaab qabaliyaysan ku dhaqmaya hogaamiyaha Damul-Jadiid Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dhaqmaya si ninka xil dhaxal ku helay sidoo kale uu dhaqmayo inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed waxaana batay safaradiisa tirabeelka ah iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud dalbo uu safray in ka badan safaradii uu safray madaxweyne Farmaajo 5 sanadood ee la soo dhaafay haddaba shacabka Soomaaliyeed waxay xilligan sameynayaan su'aalo isweydiin wada iyagoo markaasina baaraya xogaha ugu dambeeya siinaya kooxda dawladda federaalka ee Soomaaliya